salaamullaahi calaykum asxaabta. Maanta waxaan idiin wadaa 10 things, 10 basic information about Canada ayaan idiin wadaa. Mawduucaas ayaan rabaa inaan maanta la fukuro hadduu ilaahay yiraahdo. Waana idin salaamaya asxaabtayda, maadaama aan in badan kala maqnayn. Waan idin xiisay. After daqiiqada kadib waxaan rabaa inaan mawduucaasi idin soo gudbiyo. Isku soo laabasho wanaagsan asxaabay. Saan hore kugu sheegayba waxaan rabaa inaan maanta halkan 10 shay idin xasuusiyo. 10 kaas oo ah basic information Canada. Waxaa 10 shay weeyaan. Markay waxaan soo qaadan doonaa 1 2 3 4 ilaa 10 aan ka gaarno. Marka 10 kaas shay ayaan rabaa maanta in la idin share gareeyo. Dadkii og way og yihiin, dadkan ogeen waxaan rabaa inay ogaadaan. Soo marka qodobka koowaad wuxuu yahay inaan markii la dhaho Canada waxyaalo fara badan ku soo dhacayo. Soo marka that's not a problem marka dhib ma lahan, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad wax ka og tahay Canada. Barnaamijyo kalena oo soo wadaa oo ka mid yihiin ha isku imaanin Canada haddii aad u dul qaadan karin winterka, ama ha isku imaanin Canada haddii aadan dhihi karin sorry qofka, ama ha jeclaanin haddii aadan canshuurta Canada aadan bixin karin, ha jeclaanin. barnaamij macnaa soo wadaa. Marka waxaa rabaa maanta inaan guda galo barnaamijka hore in kugu sheegay. Qodobka koowaad waxaa weeyaan Canada markii la dhaho wadan walbo wuxuu leeyahay caasimad. Soo marka qaarkeen waa laga yaabaa inaad taqaanin caasimadda Canada. Haddaba caasimadda Canada waa Ottawa ama Ottawa saa u taqaano, hataa rabto Ottawa dheh. Qodobka labaad waxaa weeyaan second largest by the world land area. Canada markaa waxaa weeye waa second largest world by land area. waa wadanka labaad ee ugu weyn marka dhul ahaan markii la dhaho caalamka. Canada waa second largest world by land area markii la dhaho. waa wadanka labaad ugu dhulka weyn caalamka. Number 3 waxaa weeyaan population of Canada. 2019 muxuu ahaa populationkeeda? Populationkeeda wuxuu ahaa 2019 37.59 milyan ayuu ahaa 2019 populationka Canada. 2019 ahaa 37.59 milyan ayuu ahaa 2019 populationka Canada. Hadda ma garanayo 2020 in la soo saaray. 2020 corona waa jiraba fara badan waa lose garay malaha. Number 4 waxaa weeyaan official language. Canada waxay leedahay 2 official languages ay leedahay, waana French and English. French and English weeyaan. French and English waaye. Tan shanaad waxaa weeyaan currency. lacagta ay isticmaasho Canada maxay tahay? Ma euro, ma liga, ma dollar, maxay tahay? waa dollar laakiin ka duwan kan aad taqaanin oo US dollarka ah. wuu ka duwan yahay. Waxaan rabaa inaan maalin idinla wadaago lacagta Canada ee dollarka isticmaal. Dollar markaa maqasho ha u maleynin kii US dollarka ahayd. maaha, wuu ka duwan yahay. Dollar magaca ayay ka yihiin dollar, laakiin way kala duwan yihiin. waa Canadian dollar bay isticmaashaa Canada. So numberka maxay ahayday 6 waxaa waaye Independence Day. waa goorma Independence Day Canada? ama sanadkee xornimada qaadatay Canada? sanadkii xornimada qaadatay waxaa weeyaan July
kowdeedii 1867 1867 ayay qaatay Canada oo July 1 ayadii Soomaaliya oo isku mid inkastoo 1960 Soomaaliya qaadatay laakiin hadda Canada waxaa weeyaan July 1 bilaha ay ka sameeyeen laakiin sanadku way kala duwan yihiin. Toddoba waxaa weeyaan Canada markaa maqasho yacni caasimada ugu ballaaran ama caasimada ugu weyni waa Toronto. Toronto caasimada ugu weyni waa Toronto. Okay, 8 marka aan dhahna marka waxaa weeyaan largest state. What's the largest state of Canada? It means province. Gobolka ugu weyn Canada waa gobolkee? Waa gobolka Ontario. Waa gobolka Ontario yaa ugu weyn. Haddana wadan walba wuxuu leeyahay magaalo ganacsi. Wadan walba wuxuu leeyahay magaalo ganacsi. Hadda Soomaaliya magaalo ganacsiga Muqdisho sooma? Hadda Canada caasimada ganacsiga ama yani magaalada ganacsiga waa magaalada Toronto. Toronto waa magaalada ganacsiga. Inta ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkayga 10 qodob haddaan idinkugu celiyo. 1 caasimada Canada waa Ottawa ama Ottawa saa u taqaano. 2 waxaa weeyaan second largest world by land area Canada weeyaan. wadanka labaad ee ugu dadka badan yani ugu baaxadda weyn Canada waa Canada. populationkeedu waxaa weeyaan Canada 2019 populationkeedu wuxuu ahaa 37.59 milyan oo 2019 ya. Number 3 waaye. Number 4 waxaa weeyaan luqadaha Canada ugu caansan waa 2 waa French and English. 5 waxaa weeyaan lacagta isticmaasha Canada waa Canadian dollar way ka duwan tahay tan America. 6 waxaa weeyaan Independence Day waxaa weeyaan July 1 1867 weeyaan. 7 waxaa weeyaan magaalada largest city in Canada waa Toronto. 8 waxaa weeyaan largest state gobolka ugu weyn Canada waa Ontario. 9 waxaa weeyaan magaalada ganacsiga waa Toronto meel kale maahan. Marka Toronto waxay isku qaadatay waxay isku qaadatay laba darajo isku qaadatay. waa magaalada ganacsiga waa magaalada ugu weyn. Marka barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh asxaabteeda waan idin soo badin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo hadba sidaan waqti u helay ku xiran tahay. marka waa in salaamaya inta janaalkan subscribe saartay aad bay u mahadsanyihiin. inta aan saarno waxaan rajeynayaa inay hadda saari doonaan. laagtiina waxay i tahay dhiirigelin iyo sad u xiran tahay ayaan ka dareemayaa janaalkayga. waan ku mahadsantihiin muuqaalada kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad muuqaalada.